بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان وناكسن مركلة أردده الكان وحن كسي ودنا إن شاء الله سيودنا 10 كي chemical properties of alkenes وربع reaction كوغوري reaction كوغوري لو يقان addition reaction واتين سوشيك نسده reaction أيي كغيب قاتان صدها reaction وهي كلاهاين بين the addition reaction polymerization reaction iyo midka ugu dambeeya combustion oo ay la wadaagaan alkanes marka iyaga waxa gooni u ah labada u horeeyo ah addition reaction iyo polymerization marka addition reaction way soo qaadanay oo example ki koowaad waxaan ku soo qaadanay ethene oo ay la falgalayso baasha loo yaqaan bromine oo halka waxaan ku soo aragnay sidoo kale waxaan ka soo hadalnay reaction kaasi mechanism ka oo aan ku soo sheegnay free radical waxaan leenahay reaction kaasi mechanism kiisa waxaan ku soo sheegnay waxa la yiraahdo electrophilic addition isaga marka aan ka sii wadaynaa hadii la haydmo example ki labaad oo b da waxa weeyaan kan 18 reacts with hydrogen molecule to ethane waateen laba u kala qaybinay oo waxay niri addition reaction ku marna waa symmetric molecules bay la falgalayaan marna waa asymmetric marka bay ku jirnaa oo waxay ka soo qaadanay bromine molecule symmetric na waxaan ku soo sheegnay moleculeada labada dhinac ama labada half isleegin ama laba atom oo isku mid ah ka samaysan hydrogen oo kale hadalwaatan hydrogen waxay ka kooban tahay laba atom oo isku mid ah marka bondigu wuxuu u dhaxeeyaa halkan marka fiiriso laba atom oo isku mid ah marka half kan waa hydrogen half kan waa hydrogen marka hydrogen waxay ka mid tahay symmetric waxay la socotaa example ki hore oo ahaa symmetric molecules halkan marka waxaan leenahay 18 waa tan oo gaas ah waxay la falgashay hydrogen waxa soo baxday ethane ay noqonaysaa oo waayo meesha ka ahayd C2H4 laba hydrogen ku soo biiray maxay noqonaysaa C2H6 ay noqonaysaa oo waxa loo yaqaan hydrogenation ku wuxuu yahay marka hydrogenation waxa la yiraahdaa addition of hydrogen shayga marka hydrogen lagu daro waxa loo yaqaan hydrogenation sida chlorination ka loo yiraahdo marka chlorine lagu daro biyaha marka leeyahay biyaha waxa lagu sameeyaa chlorination macnaheedu waa addition of chlorine halkana waa hydrogen ayaa lagu daray waxa loo yaqaan hydrogenation marka ethene markii la falgasho hydrogen waxay isu bedelaysaa ethane waa waxa lagu yaqaan weeye oo markasta alkene hadii lagu daro hydrogen wuxuu isu bedelaa alkane hadana waxa tusaale inoo ah ethene bay ahayd waxay la falgashay hydrogen waxa soo baxday ethane horena wataan u soo sheegnay reaction ka addition ka maxaa lagu yaqaanaa hal product baa soo baxa laba shay baa isla falgalay laakiin product ku waa xabad oo kaliya good marka halkan waxa yaala ethane oo markaan waxaan ka dhignay markan iyadoo displayed formula ahaan ayaan ku muujinaynaa markaan displayed formula waatana double bond waa kan tan waxay haysaa laba hydrogen tan laba hydrogen waxay la falgashay marka hydrogen bay la falgashay bondiga u dhaxeeya hydrogen waa single bond bondigaas waa jabaya sidoo kale double bondkina waxa jabaya bi bond oo tan soo sheegnay bi bondka markaas jaba marka kadib waxa dhacaysa inuu soo baxdo ethane oo labadii hydrogen ta ahayd wata group-kan ku muujinay labadii hydrogen ta ahayd waxay qabsan doonaan labadii carbon bay ka qabsanayaan meesha marka double bond waa ka baxaya single bond noqonaya oo kuwa muxuu ahaa unsaturated buu ahaa muxuu soo bedelay saturated oo single bond u yeeshay catalyst ba marka reaction kan u baahan yahay si uu u degdego nickel ayaa lagu daraa birta loo yaqaan catalyst ahaan temperature-ka favorite-ka ku ah oo yaani ku haboon oo 150 degree ayaa la yiraahdaa marka ethene waa tana maxay ahayd unsaturated sababtoo ah double bond baa ku jiray waxay la falgashay hydrogen maxay noqotay ethane oo ah saturated ayay noqotay marka reaction kan waa addition reaction
reaction kan markasto oo ethene lagu daro hydrogen waxa ay soo baxaya ethane catalyst ah loo baahan yahay waa nickel catalyst sidoo kale waxa lagu daraa platinum hadaa ku ayto waa sax cadmium waa lagu daraa sidoo kale marka nickel iyo platinum baa ugu caansan waliba marka catalystuhu nickel buu noqon karaa sidoo kale wuxuu noqon karaa maxay platinum labada birood ba waa transition metals taa hore u soo sheegnay transition metals ku waa biraha inta badan laga dhigo catalyst because of inta badan waa biro low reactive ah good waa kana marka 18 reactives waxay la falgashay with hydrogen with the presence of air iyadoo meesha uu joogo nickel catalyst to form maxaa soo baxay marka ethane meesha ka ahayd ethene waxay isu bedeshay ethane this is called maxaa loo yaqaanaa hydrogenation hydrogen baa lagu daray way hydrogenation means addition of hydrogen this reaction marka is very important reaction kan waa muhiim because it is used waxa loo isticmaalaa for making margarine waxa loo yaqaan margarine-ka margarine-ku waa bahalkan caadi roodiga la marsado oo margarine baa la margarine bay dadka qaybtooda u dhawaaqaan oo xagee laga sameeyaa vegetable oil from vegetable oil saliidda dhirta ama laga sameeyo caleemaha iyo laga sameeyo saliiddaas markeeda hore waa unsaturated sida eatinto kale dhowr boon bay leedahay marka jirka bini'aadanka kuma habboona marka waxa laga dhigaa saturated si jirka bini'aadanka caafimaad ahaan kan saturated ka ku habboon marka hydrogen baa lagu daraa waxa lagu sameeyaa hydrogenation waa reaction very important ka ah industries marka laga hadlayo marka ethene plus hydrogen maxay noo soo baxaya ethane oo kamid ah family loo yaqaan alkane oo macnaheedu waa maxay saturated hydrocarbon buu ahaa hydrogen baa lagu daray maxay isu bedeshay waxaan leeyahay unsaturated buu ahaa unsaturated hydrocarbon buu ahaa hydrogen baa lagu daray muxuu isu bedelay saturated hydrocarbon oo yaa weeye alkane example yaa inoo ah hadeer ethene ayay ahayd waxay isu bedeshay ethane single bond baa meesha soo galay why reaction marka of alkene halka marka waxaan ku soo dhameynay keenii hore waxaynu ku soo dhameynay symmetric oo yaa tusaale inoo ahaa bromine molecule iyo kan oo ah hydrogen molecule marka waxaan u gudbaynaa qaybta reaction ka markay la falgalayaan asymmetrical reaction of alkene with asymmetrical molecules molecules asymmetric asymmetric astas baa raacday symmetrical baan ku hore oo labada dhinac way isleekaan laba atom oo isku mid ah ka samaysnaayeen markaas molecules kaas laakiin halkan waa asymmetrical asymmetrical maxay ii sheegaysaa molecules kan laba atom oo kala duwan bond ka dhaxaya yani labada dhinac isma leeg halkan fiiri haddii hydrogen chloride oo kale halka dhinacan waa hydrogen dhinacana waa chlorine haddii marka dhexda ka kala baro labada dhinac labada half isku mid noqon maayaan halkan waa chlorine iyo halkan waa hydrogen molecule kan marka tusaale waxay u tahay asymmetric molecules ka marka yaa tusaale u ah marka hydrogen chloride iyo water marka wuxuu ku yiri asymmetrical molecules have no equal halves malaha equal halves kama ka symmetric lagu sameeyo oo line of symmetry hadii halka la mariyo line of symmetry wax la yiraahdaa xariiqda shayga laba isla eg u qaybisa ayaa loo yaqaanaa symmetric ayaa wax loo yaqaanaa line of symmetry marka hadii dhexda laga kala baro labada half isku mid noqon mayaan oo laba atom oo kala duwan baa labada dhinac ka kala jira halkan waa hydrogen kana waa chlorine halkan hadii chlorine halkan hadii ahaan leeyahay hydrogen boos chlorine ta symmetrical buu noqon lahaa hadii kan hadii booskeeda chlorine uu gal lahaa booska hydrogen kan symmetrical buu noqon lahaa laakiin hadda halkan waa hydrogen halkan waa chlorine marka bondigan wuxuu ka dhaxeeyaa laba atom oo kala duwan sida daraadeed molecule kan wuxuu ka mid noqonayaa kuwa la yiraahdo asymmetrical molecules ka ayuu ka mid noqonayaa waa kana hydrogen iyo chlorine mid kasta hal bay share gareeyeen waa dot iyo cross ama circle iyo x kan waxa waraya lixdeedii xabadna way shargaysan sideed wata wax loo yaqaan octet sideedeedii hydrogen wax loo yaqaan duplet wax la yiraahdo laba ku buuxsamaa shaygu octet muxuu ku buuxsamaa sideed marka tan waa octet hydrogen tan waa duplet waa kana marka molecule marka caadi isagoo modelkii lagu sameeyo kubadahan yararka lagu sameeyo model iska leeyahay
dhankani cadaanka arkayso waa hydrogentii cagaarkana waa chlorine loo qaataa markii model ahaan la sawiray marka molecules-ku marka asymmetrical-ka waxa tusaale ku abaal weeyri hydrogen chloride iyo water waa inoo dhameynaya waxaan ku hormarinaynaa hydrogen chloride marka waa tana bondigan marka waa kan xariiqadan waxay u taagan tahay bondigi kan cadaanka wuxuu u taagan yahay hydrogentii cagaarkuna waa chlorine atom ahaan waa inay ka weyn tahay waa in la muujiyaa okay marka dhinaca haddaan dhexda ka kala baro marka molecule-kan dhinacan chlorine baa xigta dhankana hydrogen so ma noqonayo maxay symmetrical ma aha ee wuxuu noqonayaa asymmetrical okay the hydrogen chloride book molecule-kan laga hadlay halka inagu soo waranay reactants waxay la falgashaa with 18 bay la falgashaa molecule to form say u soo saaro molecule cusub oo loo yaqaan chloroethane meesha ka ahayd 18 wuxuu noqonayaa ethane taas maxay ku cadeynaysaa saturated meesha ka ahayd unsaturated ka inta oo double bond baa ku jira ku sheegaysaa maxay isu bedelaysaa saturated oo intaas maxay inoo sheegtaa markasta waxay inoo sheegtaa inuu meesha single bond uu noqday oo double bond waa inuu jabaa waayo double bond waa waxa molecule-ka u sahlaya in shay kale lagu daro marka chloroethane baa soo baxaysa waa kana reaction-kii marka waa kan muxuu noqday ethene waa C2H4 plus waxa lagu daray hydrogen chloride maxaa soo baxay markaa waxa soo baxaysa chloroethane waa C2H5 haddii ahaan lahayd halkaas C2H6 ethane bay noqon lahayd laakiin hal hydrogen hadii booskeeda maxay ilaa halkan chlorine baa ku jiray halkan maxay ka koobnayd hydrogen iyo chlorine hydrogen chloride marka hydrogen kana ku biiraysa maxay noqonaysaa 5 chlorine tana haga ku dhigaysa marka maxay noqonaysaa waa C2H5Cl waa markii loo qoro molecular formula magaceedan maxaa loo yaqaanaa chloroethane waa ethane oo waxa haysta chlorine ayaa haysta waa kana reaction-kii ethene bay ahayd hydrogen chloride baa lagu daray waxa soo baxday chloroethane halka chlorine baa ku dhagan weey oo booskaas marka hydrogentii labada carbon oo meesha yaala midna hydrogen buu qaadan doonaa midna chlorine ila molecule-ka wuxuu ka koobnaa laba atom oo kala duwan oo ahaa hydrogen iyo chlorine labadii atomka bondiga double bondka marka uu jabo kan wuxuu qabsanayaa hydrogentii kana wuxuu qabsanayaa chlorine waa la kala qaatay marka meesha ka ahayd ethene maxay isu bedeshay chloroethane la dhihi maayo chloroethene oo intu meesha ka baxaysaa because of intaas waxa la isticmaalayaa double bond baa jira way laakiin double bond meesha ka baxaysa muxuu noqday single bond marka maxaa la dhahayaa chloroethane oo chloro waa maxay chlorine baa ku dhagan way chlorine baa loo soo gaabinaya ethane gota chloroethane bay noqotay meesha ka ahayd ethene oo ay waxa la falgalay hydrogen chloride ayaa la falgashay reaction-kan waa addition oo maxaa lagu garanayaa because of laba reaction waa isla falgalay oo yaa way ethene iyo hydrogen chloride maxaa soo baxay hal product oo ah chloroethane ayaa soo baxday marka addition reaction sidiisa waxa lagu yaqaanaa bay nidi laba shay iyo ka badan ba isla falgala hal product waa samaysma laakiin substitution-ka waa soo dhaafnay isaga muxuu ahaa laba shay waa isla falgalay laba kale cusub ba samaysmaya taasoo kale waa substitution way waxba la bedelay way laakiin kan laba shay ethene iyo hydrogen chloride bay ahaayeen kadib waxa samaysmay chloroethane oo product hal ah oo aan wax kale la socon waayo double bond-kaas jabaya marka uu jabo labadii atom oo ahaa hydrogen-ta iyo chlorine waa la kala qaadanayaa carbon-ka bidixda ah wuxuu qaatay hydrogen sida halka inoo ka muuqata carbon-ka midigtana wuxuu qaatay chlorine waa kana oo chlorine-tiisa ay ku dhigantay marka magaca muxuu noqonayaa hadaa isdoomayso waa meeshii oo halkan hadaan chlorine ka dhigo halkan hydrogen ka dhigo markasta magacu waa chloroethane waayo markasta laba carbon buu ka kooban yahay waayo but laakiin halka ayaa ka duwan waxaad ka duwan haddii tiradu carbon-ka inta ka bato kan laba carbon bay ka wada ethene laba carbon buu ahaa hadday prop noqoto ka war but laakiin buu kiri propene reacts with hydrogen waxay la falgashaa hydrogen chloride to form say u soo saardo two possible different products laba product oo kala duwan oo possible ah as shown below wakana propene prop muxuu ku sheegayaa waa saddex carbon ayay ka kooban tahay silsiladu intaasna maxay ii sheegaysaa double bond baa ku xiga marka halka prop one in waa la iska dhigi karaa one in hadaa tiraahdo waa sax waayo carbonka double bondku muxuu haystaa carbon koowaad
يوكل حيا كربون كواد يا كربون كلواد لكن محل قاطع مركزته كربون كلام بركير هذا كربون 1 iyo 2 buu ka dhaxeeyaa laakiin 1 baa la muujinaya marka la magacaabay marka probo 1 in baa la oranaya marka probin ayay ahayd probintii marka maxay la falgashay waxay la falgashay hydrogen chloride baa lagu daray maxaa soo baxday laba product halkan reaction kan laba product buu soo saaraya oo kala duwan oo macquul ah midna waxa loo yaqaan minor product midna waxa loo yaqaan major product mid baa aad inta badan soo baxa midna wuu yar yahay laakiin waa laba product oo possible ah mid muxuu noqon karaa 2 chlorobropane oo chlorine halka meesha ka ahayd hydrogen iyo chlorine bay ahayd sumay hydrogen chloride haddii ka koobneed hydrogen iyo chlorine waxa dhici karta labadii carbon uu dhowr bond ka dhaxeeyay in chlorine ay qabsato markan carbonkii labaad in chlorine ay qabsato carbonkii labaad hydrogen tana uu qaato carbonka koowaad halka oo marka maxay noqoto waa kan chlorine waxay haystaa carbonka labaad hydrogen waxay qabsatay carbonka koowaad kaas waa mid weey waxa kaloo dhici kara in isdaba maraan oo haddana si kale isu qabsadaan chlorine ay qabsato carbonka koowaad hydrogen tana ay qabsato carbonka labaad isdaba marsan yihiin wajida markan carbonkood waxa haysta chlorine ayaa laga hadlayaa waa labada carbon double bond ka dhaxay kan ma khusayso waxay khusaysaa waa labada tan carbon double bond ka dhaxay laga hadlayaa marna kana wuxuu qabsanayaa hydrogen marna kana chlorine buu qabsanayaa marna kana chlorine qabsanayaa kana hydrogen buu qabsanayaa hadda kan maxaa la yidhi 2 chloro maxay ii sheegaysaa carbonka labaad oo kan ah maxaa haysta chlorine ko 2 chloro propane ayuu noqday marka propane oo int markaas way dhamaanaysaa haddii double bond meesha ka baxo 2 chlorobropane oo macnaheedu waa maxay chlorine waxay haystaa carbonka labaad waxa kala dhici kara inuu noqdo 1 chlorobropane oo carbonki koowaad oo kan ah in uu qabsado chlorine hydrogen tina ay kan labaad qabsato marka muxuu noqonayaa 1 chlorobropane labada product waa laba product oo macquul ah oo soo bixi kara marka 2 chlorobropane buu kuli is the major product majorka productiga inta badan soo baxa ee majorka ee badan waa 2 chlorobropane while halka 1 chlorobropane is the minor product mid ayadu aad u yada waa very rare oo inta badan waxa samaysmo ayada 2 chlorobropane marka loo fiiriyo 1 chlorobropane sababta way arki doonaa waa tana marka reaction ki markii waa tana propene bay ahayd double bond wuxuu ka dhaxay carbon koowaad iyo labaad waxay la falgashay hydrogen chloride waxa soo bixi kara inuu noqdo mar inuu soo baxo 1 chlorobropane oo carbonki koowaad markan chlorine ku dhigan tahay iyo in hadana ay la falgasho ama ay soo baxo kan oo uu carbonka labaad uu haysto chlorine oo ay noqoto 2 chlorobropane marka labada kan waa cross baa la saaray kan waa khalad inta badan ma soo baxo ka inta badan yaa major ah midka ah 2 chlorobropane waxa sababay sababta waan sheegi doonaa halkan marka aan fiirino marka xeerkan aad fiiriso xeerkana inoo sheegay marka to identify marka si aad u garato the major product labada tan maxaa kan loo yiri waa minor kana loo yiri waa major ama kan yiri inta badan ma soo baxo kana inta badan sameysmo maxaa loo yiri oo 2 chlorobropane ayaa ka caansan oo inta badan sameysmo marka loo fiiriyo 1 chlorobropane marka see ku garanaysaa marka to identify the major product marka si aad u aqoonsato ama u garato major product-iga we use waxaan isticmaalaynaa xeerkan loo yaqaan Markovnikov's rule waa nin magaci weey Markovnikov's rule this rule halka this rule states that this xeerkan wuxuu sheegayaa waka the carbon double bond labada carbon ee double bond ka dhaxeeya midka with the highest number of hydrogen midka hydrogen ta awal ay ku badneed takes wuxuu qaataa the hydrogen markasta labada kan hydrogen ta ay ku badneed ayaa markasta hydrogen ta qaadanaya halkan aan eegno marka halkan si fiican u soo fiiri halkan markaad eegto labada carbon double bond ka dhaxeeya waa carbonka koowaad iyo kan labaad kan inuu hydrogen buu haystaa laba hydrogen buu haystaa kana muxuu haystay hal hydrogen buu haystaa oo kaliya laakiin kan kale kan iga daa kan isaga ma khusayso oo kan saddex hydrogen buu haystaa isaga ma khusayso isla fahanay halka
marka kan muxuu haystay hal hydrogen kanna wuxuu haystay laba hydrogen marka chlorine-tii waxaan leeyahay hydrogen-tii waxa qaadanaya kan koowaad oo hydrogen-ta awal ku badnayd chlorine-tii waxa qaadan doona kan labaad oo hydrogen-tii ku yaray marka midka awal hydrogen-tu ay ku badnayd ayaa wuxuu qaadan doonaa hydrogen-tana qaadan doona midka hydrogen-ta ay ku yaraydna wuxuu qaadan doonaa chlorine-ta marka halkan wuxuu haystay laba hydrogen halkan hydrogen baa laga rabaa chlorine ma aha sorry halkan waa hydrogen ayaa laga rabaa marka labada laga hadlayo laakiin kan ma khusayso waxa laga hadlayo waa labada double bond uu ka dhaxayo labada double bond waa kan iyo kan way marka halkan double bond maadaama uu ku jiro kan ma khusayso marka labada tan carbon kan wuxuu haystaa carbonka waa laba hydrogen ayuu haystaa kanna wuxuu haystaa hal hydrogen marka halkan hydrogen tan halkan ku taala waxay qabsan doontaa ka labada hydrogen haysta ilaa isaga awal ku badneed marka xeerka la fiiriyo chlorine-tuna waxay qabsan doontaa midka hydrogen-ta ku yadhaya hal xab u haysta xeerku marka intaas uu inoo sheegaya waxa loo yaqaan Markovnikov's rule wuxuu ku leeyahay marka to identify si aad u garato the major product we use waxaan isticmaalaynaa Markovnikov's rule this rule marka wuxuu sheegayaa the carbon double bond carbon ka double bond ka uu ka labada carbon double bond ka dhaxayo with the highest number midka hydrogen-ta highest number of hydrogen midka haysta ama midka hydrogen-tu ay ku badan tahay text ayaa qaadanaya wuxuu qaadan doonaa maxay the hydrogen isaga qaadanaya markaas wuxuu noqonayaa marka major product marka markaan eegno halkan kan maxaa haystay hal hydrogen kana muxuu haystay laba hydrogen kan marka muxuu haystaa laba kana hydrogen badan halka maxaa ka cad marka kan muxuu qaadanayaa saddex buu noqonayaa meesha awal ka ahaa hydrogen-ta laba hydrogen isaga wuxuu qaadanayaa hydrogen-ta isaga qaadanaya chlorine-tina waxa qaadanaya midkan oo halka hydrogen haystay awal ayaa chlorine-ta qaadanaya صح marka maxaa ku soo baxay marka kan 2 chlorobropane kana marka major noqonaya oo sax la saaray this is the main product waayo xeerkii wuu aqbalaya laakiin kan fiiri hydrogen maxay ku dhigtay waxay ku dhigtay kii hydrogen-tu ee awal ee ku yarayd chlorine-tuna maxay ku dhigtay kii awal ku badneed oo kan awal laba hydrogen buu haystay isagay qabsatay chlorine kana muxuu haystay hal hydrogen isagii marka wuxuu noqday laba hydrogen oo waxa ku dhigay hydrogen-ti isagay qabsatay taa maxay ku wacdin marka tan uma aha minor major product-igi oo 1 chlorobropane noqon karo oo xeerku wuxuu ku leeyahay labada carbon oo double bond ka dhaxeeya waxa qaadanaya midka number of hydrogen-tu ee awal ku badnayd ayaa hydrogen-ta qaadan doona chlorine-tuna waxay ku dhigaysaa kan kale oo ay ku yadhahay number of hydrogen-ta marka this means tan macnaheedu waa maxay chlorine joins chlorine-tu maxay ku dhigaysaa the carbon in the double bond carbon-ka double bond-ka ku jira which has kaasoo muxuu leeyahay lowest number of hydrogen markasta chlorine-tu waxay qabsanaysaa maxay midka hydrogen-tu ee awal ku yaray sida daraadeed major product-iga marka yaa sax marka noqonaya midkan oo chlorine-ta waxay labada tan carbon buu double bond ka dhaxay kan wuxuu haystay hal hydrogen kana wuxuu haystay laba hydrogen kan marka muxuu qaadanayaa chlorine-ta kana qaadanaya kana muxuu qaadanayaa hydrogen waa kana marka kan muxuu qaatay hydrogen saddex buu noqday meesha ka ahayd hydrogen-ta awal CH2 buu ahaa muxuu noqday CH3 buu noqday chlorine-tuna maxay ku dhigtay kii labaad oo ahaa CH buu ahaa markana maxaa qabsaday chlorine-tu baa qabsatay marka saas wuxuu ku noqday marka xeerka marka la raaco Markovnikov's rule waxa major product noqonaya maxay midkan saxda la saaray ayaa wuxuu qaadanayaa maxay ayaa noqonaya oo ah 2 chlorobropane 2 chloro macnaheed carbon-ka labaad waxa haysta chlorine way wuxuu marka to identify the major product we use the Markovnikov's rule waxaan isticmaalaynaa xeerkan wuxuu inoo sheegay the carbon double bond with the highest number of hydrogen takes the hydrogen labada carbon oo double bond ka dhaxeeyo midka number of hydrogen awal ee ku badnayd ayaa markana hydrogen-tu ku darsan doona macnaheedu waa maxay chlorine-tu this means the chlorine joins the carbon chlorine-tu waxay ku dhigi doontaa the carbon-ka in the double bond ee double bond-ka uu ku jiro with the lowest here which has the lowest number of hydrogen kaasoo awal ee ku yarayd hydrogen-ta
marka saartina kala saado keewa minor keewa major waxaad eegaysaa marka hore moleculeska awal uu ka sameysmay waxaad fiirinaysaa yaa awal hydrogen ku badnayd yeeso ku yareyd kan hydrogen xabad buu haystay kana labo haystay macnaheedu waa maxay kan wuxuu qaadanayaa maadaama laba hydrogen haystay hal hydrogen isaga qaadanaya chlorine tuna waxa qaadanaysa kan labaad so this is the major product okay 18 marka waa qodobka labaad marka kaas waxaan kaga soo baxnay waa hydrogen chloride example labaad waxaan inoo abaynay water-ka ila laba ay ahaayeen asymmetrical waa hydrogen chloride iyo water 18 marka sidoo kale reactions waxay la falgashaa water molecule oo isaguna kamid ah asymmetric molecules with the help iyadoo ay saacidayso acidka loo yaqaan phosphoric acid ama sulfuric acid inta badan phosphoric acid ayaa caana loo isticmaalaa as a catalyst ahaan bay u noqonaysaa to form say u soo saaran maxaa soo baxay marka ethanol 18 bay ahayd waxay isu bedeshay ethanol hadaad maqasho OL waa alcohol waa family kale way 18 intaas waxay ku sheegaysaa alkene all maxay ku sheegaysaa waa alcohol marka hadii alkene aad ku dadbiyo waxa ku soo baxaya automatically alcohol ba ku soo baxay tusaalena waxa inoo aharakan 18 markii lagu daro water oo lagu daro phosphoric acid catalyst ahaan waxa soo bixi doona ethanol waayo ethanol maxay soo baxaysaa because of it buu ahaa kanu oo laba carbon waa kanada it buu noqonaya 18 it oo laba ah ethanol it oo laba ah laba carbon buu ka koobnaa laba carbon buu kana ka koobnaanaya waayo carbonka ma siyaadayo mana isdhimayo laakiin waxa isbedelaya oo kaliya functional groupki oo meeshu ka ahaa double bond wuxuu noqonayaa OH waa sidaan ku arkeen example-da soo socda marka waa tan example-ki 18 Ce2H4 waxa lagu daray water oo liquid ah waxa soo baxay ethanol C2H5OH ethanol OH hadaan aragno waa tan soo marnay functional groups OH hadaan maqasho waa alcohol way marka 18 waxay la falgashay water waxa soo baxay ethanol markaan displayed formula markaan waxaan molecule ahaan bay u sameeynay bal markan aan u qorno iyadoo displayed formula waa kan carbonka labada carbon maxaa ka dhaxeeyay double bond carbon kastana muxuu haystay laba hydrogen this is the 18 ama ethylene hadaa ethylene maqasho iyo 18 waa isku macne maxay la falgashay marka water ayay la falgashay hydrogen ion taas maxay u taagan tahay acidki baa laga wadaa iyadoo lagu darayo acidki phosphoric acid maxaa soo baxday marka ethanol oo halkan biyo maxay u kala go'ayaan OH oo meela iyo hydrogen oo meela labadii carbon marka uu double bond ka dhaxeeyay carbonka koowaad wuxuu qaatay hydrogentii carbonki labaadna wuxuu qaatay OH-ki way kala qaybsadeen waa u jeedaa blue baa lagu muujiyay kan wuxuu qaatay hydrogentii kanna wuxuu qaatay OH-ki ila biyo waxay u kala jabayaan hydrogen oo meela iyo OH oo meela marka ethylene ama 18 bay ahayd biyaa lagu daray maxaa ku soo baxay ethanol halka OH baa ku jira hadaa OH aragto waxay ka mid tahay alcohol family la yiraahdo hadaan biyihii marka kala qaadno waa kan waa isla sugiyo kale laakiin biyihii baan kala qaadno markan biyihii maxay u kala qaadnay halkan waa H xagana waa OH waa asymmetrical hadaan dhexda ka kala qaybiyo dhankan hydrogen baa jirta dhankaana OH hadda OH iyo hydrogen isku mid ma marka hadii labada dhinac ay molecule-ku isku mid noqon waayaan waxa loo yaqaan asymmetrical oo hadii line of symmetry dhexda la mariyo equal half isma soo baxayaan oo dhankan waa hydrogen dhankaana waa hydroxide marka 18 waatan markii lagu daray OH-ki H-ki waxa qaatay carbonki koowaad OH-kina waxa qaatay carbonki labaad oo waa la kala baxay marka saas maxaa ku soo marka baasha loo yaqaan ethanol ethylene plus water waxa soo baxay ethanol marka functional group waa isbedelay meesha uu ka ahaa double bond oo alkene uu ahaa wuxuu isu bedelay alcohol oo OH waa meesha soo galay functional group cusub weeye marka markasto alkene wuxuu doona ha ahaade
lagu darabiyo iyadoo la kaalmaysanayo phosphoric acid ama sulfuric acid buu baahan yahay waayo reaction kan waxa la yiraahdaa waa reversible dib buu u soo noqonaya waa reversible reaction si marka rate-ka forward-ka kor loogu qaado acid buu baahan yahay saasa marka keenaysa in lagu daro phosphoric acid rate of reaction wataan ku soo qaadanay waxa loo yaqaan reversible reactions waxa la yiraahdaa reactions ka labada direction ba aada marna xagga product-ga aadaan marna reactant-ga bay ku soo noqdaan marka ogow reaction kan sababta acid-ka loogu daray waa maxay in laga hortago backward reaction-ki ama reverse reaction-ki si loo yareeyo rate-kiisi oo forward-ki maxay kor loogu qaado marka 18 bay ahayd waxay ka mid ahayd family-ga loo yaqaan alkene waxay isu bedeshay ethanol oo ishkaasna muxuu ku sheegayaa family-gu waa family-ga waa alcohol ama alkanol ayaa la yiraahdaa marka mar walba maskaxdaada ku hay haddii alkene lagu darabiyo waxa ku soo baxaya muxuu noqon doonaa waa alcohol tusaalena waxa kuugu ah memberka ugu horeeya alkene-ka oo ah 18 waataan soo sheegnay mid ma laha iyo hal carbon ma laha ugu yaraan maxay ka kooban yihiin silsilada ugu yar waa 2 carbon alkenesku waayo double bond-ku ugu yaraan wuxuu ka dhaxayn karaa 2 carbon oo kaliya hal carbon double bond ma samayn karo ma fahanteen sheekada marka labadii carbon waxa ka dhaxeeya double bond marka waxa loo yaqaan 18 waa labo 18 ama ethylene waa la dhihi karaa 18 oo 2 carbon oo double bond ka dhaxeeya markii biyo lagu daray waxa ku soo baxay waa ethanol waa labadii carbon waa intoodii laakiin maxaa dhacay oo kaliya double bond-ki baa jabay double bond-ka khaasatan maxaa jaba waxa jaba bi bond-ku marka uu jabo labadii carbon oo double bond-ku ka dhaxeeyay waxay kala qaadanayaan hydrogen-tii iyo OH-ki ay biyuhu u kala jabeen labadii carbon-ki bidixda muxuu qaatay hydrogen-tii buu qaatay kan midigtaana muxuu qaatay OH-ki buu qaatay saasa maxaa ku soo baxay marka ethanol double bond-kina meesha waa ka baxay halka ha u qaadan in haddii double bond-ki meesha uu jabay oo uu single bond noqday inuu alkane noqday alkane ma noqone waxaad eegaysaa functional group-ka OH-ka eegaysaa marka single bond-kan lama qiimeynayo waxa la qiimeynayaa OH-ka priority-ga waxa iska leh OH-ka ayaa iska leh priority-ga mar hadduu OH meesha soo galo automatically silsiladaasi meel kasta single bond ha kaga jiro meel ka mid ah hadduu OH ka soo galo silsiladaas waxaan leenahay waa alcohol lama dhahayo waa alkane oo single bond ba ku dhimaysid waxaad eegaysaa OH-ka oo kaliya halka marka waxaan ku soo aagnay marka alkene oo double bond leh haddii biyo lagu daro oo isla markaa waxaad helaysaa waa maxay waa waxa ku soo baxay alcohol marka hadda warshadaha haddaad u baahan tahay inaad samayso ethanol oo aad ka samaysid 18 just maxaa ku daraysaa oo kaliya water baad ku daraysaa adigoo u kaalmaynaya phosphoric acid as a catalyst why because this reaction is reversible reaction kan waa reversible dib buu u soo noqon karayaa marka biyahani meesha ka baxaya haddana wuxuu dib ugu soo noqonayaa 18tii marka sida daradeed si loo soo helo ethanol-shii uusan reaction-kuna dib u soo noqon we have to add phosphoric acid or sulfuric acid good waa kana marka like hydrogen chloride buu kori sida hydrogen chloride-ka aan ku soo aragnay hadaaye water reacts with propene water-ka wuxuu la falgalaa propene-ta to form suu u soo saaro major and minor products laba product markan possible ah midna waa major midna waa minor kan major-ka iyo kan minor-ka waxaad ku garanaysaa waataan soo sheegnay Markovnikov's rule xeerka loo yaqaano Markovnikov's rule hadda markaan ku apply gareyno Markovnikov's rule xeerkan labadan yaa marka noqonaya major keebaas noqonaya minor waa kana propene carbon-ku ka dhaxeeya double bond-ku ka dhaxeeya carbon-ka koowaad iyo carbon-ka labaad maxaa lagu daray water sidoo kale water-ka maxay u kala jabayaan OH oo meel ah iyo hydrogen oo meel ah marka isagu waa asymmetrical markasto asymmetrical ay la falgalaan propene iyo kuwa ka badanba maxa soo baxa laba product midna loo yaqaan major midna wax loo yaqaan minor marka mid baa marka inta badan sameysma midka kalena saa looma sameysmo aad buu u yar yahay kan major ka badana inta badan sameysmo waa yara kan oo kale marka
labada kaarboon uu ka dhaxeeyo double bondku kan maxaa haysta hal hydrogen kana waxaa haysta laba hydrogen according to the Markovnikov's rule markeen u eegno Markovnikov's rule muxuu ina lahaa wuxuu ina lahaa labada kaarboon ee double bondku ka dhaxeeya markasta kan hydrogen-ta awal ee ku badnayd ayaa qaadan doona hydrogen-ta ka hydrogen-tu ku yaraydna wuxuu qaadan doonaa shayga kale ama ha noqdo chlorine ama ha noqdo OH wuxuu doona ha noqdo markasta hydrogen-ta waxa qaadanaya kan hydrogen-ta ee awal ku badnayd kan marka eegno marka kaarboonka labaad iyo kaarboonka koowaad ayuu ka dhaxeeyaa double bondku kan saddexaad shuqul kuma lihi sababtoo ah isaga double bondka ma khuseeyo labada double bondku ka dhaxeeyo waa inuu ka hadlaynaa markaan labada eegno kaarboonka koowaad oo double bondka ku jira wuxuu haystaa laba hydrogen ayuu haystaa kaarboonka labaad oo double bondka isaga haystana waxa uu haystaa hal hydrogen macnaheedu waa maxay hydrogen maxay raaci doontaa waxay qabsan doontaa kaarboonka koowaad maadaama laba hydrogen uu haysto kaarboonka labaadna muxuu qaadan doonaa OH waayo maxaa ku yar hydrogen waa ku yar soo labada tan marka yaa major marka propan 2 all ayaa major ah mise propan 1 all ayaa major ah waxa major noqonaysa propan 2 all waayo kaarboonka labaad oo hydrogen ku yarayd ayaa waxa raacaya OH hydrogen maxay raacaysaa kaarboonkii koowaad oo meeshu ka ahaa CH2 wuxuu isu bedelay CH3 oo 3gaas wuxuu ku sheegayaa hydrogen baa ku biiday yes laakiin this one propan 1 all isagu kii hydrogen ay ku badneed baa OH ka haysta so this product is very rare it cannot be seen inta badan ma soo baxo so this is the major product propan 2 all marka propan 1 all is the minor product while propan 2 all is the major product propan 1 all ku waa mid minor ka ah oo inta badan aad uma samaysmato laakiin waxa aad u samaysma propan 2 all why because of Markovnikov's rule wuxuu ku yiri propan 1 all is the minor product while propan 2 all is the major product according miya iska leedahay waxa kale ma iska dhahaysaa no la iska dhihi maayo waa according to the Markovnikov's rule xeerkaas ayaa adiga ku hagaya oo xeerku muxuu ku yiri mar walba labada kaarboon ee double bondku ka dhaxeeyo midka awal hydrogen ku badnayd ayaa waxa qaadanaya hydrogen shayga kale ama ha noqdo chlorine ama ha noqdo bromine ama ha noqdo OH wuxuu doona ha noqday isagu wuxuu raaci doonaa markasta dhanka hydrogen ee ku yadha ama kaarboonka hydrogen ee ku yadha so xeerkan marka wuxuu inoo sheegayaa propan 2 all in ay tahay the major product halka propan 1 all ay ka tahay the minor product markaas maskaxda ku hay 18 hadii la dhaafo oo propene iyo butene iyo hadii la gaaro oo kaarboonku sii bato mar walba waa in loo kala saaraa waxay la falgaayeen ma asymmetric ba mise waa symmetric laakiin 18 hadii tayadu ma kala saaro waayo gabigeeda laba kaarboon bay ka kooban tahay hadduu symmetric yahay iyo haddii asymmetric waxba ma saameynayo laakiin markii 18 la dhaafo oo number of carbon ku siyaado propene wixii laga bilaabo waxa hadii uu la falgalo symmetricalka waa caadi laakiin asymmetricalka hadii la falgalo sida hydrogen chloride iyo water iyo iyagu wuxuu soo saaraya markaas laba product oo midna loo yaqaan major product midna loo yaqaan minor product kan major ka aan maxaad ku garanaysaa xeerka ninkan lagu magac daray oo loo yaqaan Markovnikov's rule oo ina lahaa mar walba hydrogen waxa qaadanaya midka hydrogen ay ku badan tahay shayga kalena wuxuu raacayaa midka hydrogen ku yahay so this one takes the hydrogen okay halkaas ayay inoo joogaysaa insha Allah waxay kalena casharada wali waa soo insha Allah halkaas inoo joogaysaa intaan halka waxaan kaga baxaynaa addition reaction waxayna ku xigi doonaa insha Allah polymerization iyo wali waxaan ku jirnaa chemical properties of alchemies السلام عليكم ورحمة الله وبركاته